وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan waxaan u rajeynayaa guul iyo horumar sida aan daba socotaan sideedii bishii koowaad 2018 maleeshiyada laga soo abaabulay maamulka Hargeysa ayaa waxay duulaan qaawan ku soo qaadeen dhulka Puntland waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka Tukarraq ee ka tirsan degmada Laascaanood ee gobolka Sool. waxaa xusid mudan in duulaanka maamulka Hargeysa uu ku soo aaday Puntland xilli uu booqasho rasmi ah Puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka ah Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka Hargeysa u carqaladaynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Puntland waxay ku mashquulsan la dagaalanka argagixisada caalamiga ee Shabaab iyo Daacish. duulaanka maamulka Hargeysa ku soo qaaday Puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga. Puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dib-u-dhiskiisa mana doonayso inay daadiso dhig Soomaaliyeed. dowladda Puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda. waxaana u sheegayaa maamulka Hargeysa duulaanka ku soo qaadeen Puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo inay heli doonaan jawaabta ku habboon. haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dibaddaba ku wargelinayaa inay u diyaargaroobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba. ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya daneeyayaasha xasiloonida Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka Hargeysa uu mas'uul ka noqon doono cawaaqib xumada ka iman doonta duulaanka qaawan ee ku soo qaadeen deegaanka Puntland. wabillahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.